بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد caawa waxaan shirkan jiraad u qabanaynaa arrin ku saabsan xanuunka runtii adduunka halakeeyay ee COVID-19 oo galmudugna si ba'an ugu jira. waxaad la socotaan magaalada Cadaado oo runtii meelaha ugu daran uu yahay in maalin dhaweed qaradhaanteena dawladda dhexe ay ka soo jawaabtay oo qalab caafimaad iyo daawo iyo dhaqaatiirba ay soo dirtay. dhaqaatiirtii baaritaan degdeg ah oo maxaa la dhahay guud ayay sameeyeen. waxaa la baaray 110 qof oo runtii u badan dadkii meelaha publica imaanayay oo waliba aan ahayn dadkii guryaha ku xanuunsanaay. 110kaas qof 47 qof oo kamid ah waxay noqdeen positive oo cudurka ayaa laga helay. taas macnaheedu waxa waaye in aad runtii cudurku ugu jiro galmudug. 47 qof 41 kamid ah waa rag, 6 qof oo kamidana waa dumar. tirada guud oo galmudug cudurka ilaa hadda laga helay oo lab test la marsiiyay waa 61 qof. sidaas darteed waxaan rabnaa inaan fursadan ka faa'iideysanayna inaan mar kaleba aan codsano oo dawladda federaalka Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo cid kasta oo galmudug ka caawin karta in la helo lab test in la helo oo runtii ay noo fududaato markaas in baaritaano la sameeyo. waxaan aaminsanahay haddii baaritaankaas xawliga ah oo 110 qof hal mar la baaray meelo badan runtii laga sameey lahay oo ay state-ku u haysan lahay lab test haysan lahay in ogaanshaha la ogaanayo inta qof oo cudurku soo ritay ay intaan runtii ka sii badnaan lahayd, xog badan laga heli lahay, taxadarka iyo feejignaantuna inta ka badnaan lahayd. sidaas darteed arintaas waan cusleynaynaa. midda labaad waxaan rabnaa inaan sheegno dhammaan dadkaas 110 qof oo la baaritaanka lagu sameeyay waxay dhammaantood ahaayeen reer Cadaadi ahaayeen. waa dareemi kartaa marka maadaama galmudug oo dhan isku furan tahay dadkuna sidaan horey in badan u sheegnay ay dhammaantood wada sheeganayaan oo xanuunka iyo calaamadihiisa laga wada qaylinayo in maaragtay degmooyinka dhan iyo baaxadda dhulka galmudug ay ku fadhido u leeyahay ay cudurka oo si ba'an ugu jiro waa caddahay. run ahaantii waxaan rabnaa marka ummadda reer galmudug inaan uga digno inaan ku baraarujino runtii inay qaataan u dhaganuglaadaan tilmaamaha caafimaadka ama fariimaha caafimaadka ee dhaqaatiirtu bixinayaan oo cudurkan si serious loo qaato oo dhab loo qaato oo la taxadaro. cudurkaanu runtii ma lahan daawo, ma lahan ka hortag ayuu leeyahay. ka hortagiisuna waxa waaye in qofku marka hore uu feejignaado. qof kasta cudurkaas ama iskaga shakiya ama maxaa la dhahay xanuun dareemana oo gurigiisa runtii isbaara marka hore gurigiisa isku karantiiro, dadkiisa ehelkiisana uu ka ilaaliyo. waliba dhalinyarada waxaan ka codsanaynaa inay u naxaan dadka waayeelka ah oo guryaha jooga oo runtii la sheego cudurka in aad ugu nugul yihiin ama dadka xanuunada qaba. intaas ayaan rabnay inaan runtii aan ku celcelinno oo arrintaas wacyigelinta xoog la saaro. waxaan rajaynaynaa inaan cudurkan dhab u qaadano. ilaahayna waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala inuu cudurkan naga dul qaado guud ahaan Soomaaliya oo dhan. maxaa la adduunka oo dhan runtii problemkiisa ilaahay uu naga fududeeyo. dhammaanteena waxaa noo ballama inaan feejignaano, inaan taxadarno, inaan u hogaansano fariimaha wacyigelinta ee caafimaadka, in mas'uuliyadda qof kasta iska saaro naftiisana ka bilaabo sidii cudurkan looga hortagi lahaa. waa mahadsantihiin. salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.